dagaal aad u culus oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa iminka ka soconaya gobolka Mudug gaar ahaan meel 20 kiiloomitir u jirta magaalada Galdogob ee dowlad goboleedka Galmudug. wararka halkaas ka imaanaya ayaa sheegaya in maanta la isku adeegsaday hubkii ugu cuslaa kuwaas oo isla dhacayaan maleeshiya beeleed wada dagaalkaas. mid ka mid ah beelaha ayaa la tilmaamay inay maanta weerar ay ku ekeysay maleeshiya beeleed kale oo hore oo dagaal kala dhaxeeyay kuwaas oo maalmo ka hor iska dilay dadkii ugu badnaa. kol hore dadka dagaalkaasi ku dhintay waxa la gaasiyay timashada ama inta la xaqiijiyay ay gaaraysa 50 qof. dhaawacuna wuxuu ahaa mid beela oo ilaa haatan xaqiiqis lahayn. hayeeshee maanta ma jirto ilaa haatan cid xaqiijin karta dagaalku inta khasaare ay ka dhalatay. waxaana la sheegayaa inuu ilaa iminka dagaalku uu socdo welina la isku adeegsanayo hubkii ugu cuslaa kuwaas oo ay heli kareen labada maleeshiya beeleedba. wararka qaar oo aan la xaqiijin ayaa sheegaya in dagaalku uu gudaha u galay magaalada Galdogob ee dowlad goboleedka Galmudug. sidoo kale waxaa la tilmaamay in maantay uu xiran yahay gebi ahaanba garoonkii diyaaradaha ee magaaladaas iyo sidoo kale isku socodkii guud ahaaneed ee magaalada Galdogob ee dowlad goboleedka Galmudug. ilaa haatan ma jirto waxa warar oo ka soo baxay dhinaca dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale tilaabo ay qaadeen kuwaasi oo lagu kala dhaxdhaxaadinayo dadka halkaas dhiig iskaga daadanaya oo maantay markaa qoryaha isku qaatay. dagaalka iminka halkaas ka soo cusboonaaday ayaa wuxuu yahay mid daba socda dagaal maalmo ka hor halkaas ka qarxay kuwaas oo maleeshiya beeleedka iyo dadka ugu badnaa iskaga dhameeyeen. welina waxaan ilaa haatan xal laga gaarin colaad kale oo maalmo ka hor iyana ka dhacday xadka ay wadaagaan magaalooyinka Cabudwaaq iyo Xaraale kuwaas oo gogoshii nabadeed oo u fidiyay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ee sajirin ilaa haatan cid isku raacday oo war saxaafadeed wada jir ah soo saaray oo ku saabsan heshiis ay ka wada gaareen. dowlad goboleedka Galmudug waxa ku soo noqnoqonaya sanadkan dagaal beeleed qaraar kuwaasi oo dad badan ay ku dhamaanayaan. waxaana muuqata in ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedka Galmudug bay u taalo shaqo aad culus taasi oo u baahan in ay ilgooni ay ku fiiriyaan deegaanada ay dagaaladu ka aloosan yihiin. magaaladan iyo sidoo kale magaalada Gaalkacyo xadadka ay wadaagaanba waxa dhowr mar ka dhacay dagaalo qaraar kuwaasi oo isku adeegsanayaan hubkii ugu cuslaa maleeshiya beeleedka wada dagaalkaas. dagaalkan ayaa la aaminsan yahay inuu sabab u yahay hubkii ay dowladda Soomaaliya maleeshiya beeleedkaas ay wada siisay si ula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliya ee dagaal kula jirto. hayeeshee maleeshiya beeleedkii oo kol hore isku cariisanaa oo caloosh ka wada bukay ayaa isku adeegsaday hubkii ugu cuslaa oo dowladda Soomaaliya ay siisay si ula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab. hayeeshee ayaga ayaa dhiig iska daadinaya oo halkaasi markasta waxa ku dhimanaya qof shacab ah iyo sidoo kale dad halkaasi ka soo wada jeeda oo dhalinyaro u badan. ma jirto ilaa haatan dhankeeda culimada maamul goboleedka Galmudug iyo sidoo kale guud ahaan culimada Soomaaliyeed wax war oo ka soo baxay kuwaasi oo lagu kala dhaxdhaxaadinayo xiisada halkaasi ka aloosan. hayeeshee waxa markasta loo laaba jiray oo halkaasi xaaladeeda markasta deji jirtay oo dhaqameedyada iyo sidoo kale wax garadka dowlad goboleedka Galmudug markii ay ka gaabiyaan dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda Soomaaliya. hayeeshee ilaa iminka ma jirto wax war oo ina ka soo baxay oo ku saabsan xiisada dagaal ee halkaasi maanta ka taagan kuwaasi oo la aaminsan yahay inay iminka ay taagan tahay hubkii ugu cuslaana la isku adeegsanayo. dagaalkaasi waxa la aaminsan yahay inuu maanta yahay kii ugu cuslaa ee waayada ama ka dhaca dowlad goboleedka Galmudug. lama oga inta ay socon doonaan dagaal beeleedyada khasaaraha dhalinaya ee ka soconaya dowlad goboleedka Galmudug. hayeeshee waxa laga warsugi doonaa dowlad goboleedka Galmudug talaabooyinka ay qaadaan madaxdiisu iyo sidoo kale waxa xiga doona dagaal beeleedkan qaraar ee maantay ilaa bilooyinkii la soo dhaafay ka aloosnaa qaybo kamid ah dowlad goboleedka Galmudug.